محمد حسين روبله رئيس الوزراء الصومالية ayaa wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uu si cad ugu sharaxay xiriirka ka dhaxeeya dilalkii loo geystay sargaalad Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd NISA iyo xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd xubnaha golaha shacabka ee baarlamaankii 10aad. Roble waxa uu wareysigan ku soo bandhigay culaysadii uu kala kulmay cadaalad welida kiisaska Ikraan iyo Aamina waxaana uu muujiyay inuu wajahay xaalad jahwareer ah oo ay ka dambeysay markii wax wada shaqeynah uu ka waayay hay'adihii amniga ee la doonayay inay u howlgalaan wax ka qabashada ciddii ka dambeysay dilalkaasi. waxa uu muujiyay in laamaha amniga qaarkood ay qayb ka ahaayeen wixii dhacay dhankiisana uu isku dayay inuu soo helo dhinacyadii ku lugta lahaa kiiska Ikraan balse gacmihii uu ku tuhmayay inay ka dambeeyeen dilka ay diideen inay wax wada hadal ah ka galaan ficiladii ay geysteen. waxa habeenkaas iga hadalsi wuxuu ahaa gabadhii Ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan darbiga soo taabtay darbigi dadka ka dambeeyay waa u dhawaaday inaan soo taabto dadka ka dambeeyay way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo. Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in shakhsiga isku qarxiyay xildhibaan Aamina Allah u naxariistee laga keenay meel ka baxsan magaalada Beledweyne oo uu ka dhacay dilkeeda sidaas daraadeedna Aamina ay ku baxday gacantii hore ay ugu baxday Ikraan Tahliil. waxa yar haddaan ku sheego Aamina dadka dilay waxa la dhahaa gobolka kala laga keenay ninkaas Aamina dilay habeenkaas saacada cishaha amal ahayd qiyaasaya ma rumaysanaysaa 3 xildhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo Aamina ka dambiye badan markii dhinaca shabaabka loo fiiriyo marka imagine Aamino intaan taariikhdeeda ka hayno mar ay kooxahaas oo maxaa la yiraahdaa argagixisada ama al-shabaab ay wax ka sheegtay meel lagu maayo waa yaa wacid marka taageer garaysanaysa. inkastoo ra'iisul wasaare Roble uu si shakhsi ah isugu howlay in cadaaladda la hor keeno shakhsiyaadkii ku lugta lahaa kiisaska Ikraan iyo xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi haddana kooxdii Villa Soomaaliya ay hormuudka u ahaayeen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa xoog iyo xeeladba ku bixiyay in la hor istaago dadaaladii socday. waxa ay diideen in maxkamadda ciidanku ay baarto kiiska Ikraan waxaana la tuhunsan yahay inay khaarijiyeen xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ahayd cidda keliya ee u ololeynaysay cadaalad welida Ikraan marka laga reebo hooyo Khaalid Guhaad oo ilaa maanta xafiis kasta oo dawladeed u hortaagan in la helo raq iyo ruuxba halka ay ku dambeysay gabadheeda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wali aan xafiiska la wareegin ayaa laga filayaa in tallaabooyinka ugu horeeya oo ay qaadayso dawladdiisu ay qayb ka noqdaan sharciga la hor keeno gacan ku dhigilayaashii ka dambeeyay falka lagu leeyahay Ikraan iyo dilka Allah u naxariistay xildhibaan Aamina. si gaar ah xildhibaan Aamina waxay qayb ka ahayd xisbiga UPD ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud